ergeyga qaramada midoobay Danjire James Swan ayaa Somaliland ugu baaqay in la ilaaliyo xorriyadda siyaasadda iyo xuquuqul insaanka. Danjire James Swan oo Khamiistii hadal u jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ugu baaqay madaxda Somaliland iyo Soomaaliya sidoo kale in ay wanaajiyaan xiriirkooda oo ay dib u bilaabaan wada hadalladii istaagay ee labada dhinac. waxaanu ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta Muqdisho iyo Hargeysa inay awoodda saaraan baahiyaha shacabkooda oo ay u maskax furnaadaan hindisayaal cusub si loo dhiirigeliyo wada hadallada labada dhinac. waxaana isagoo ka hadlayay doorashooyinka Somaliland iyo xorriyadda siyaasadda uu intaasi raaciyay iyadoo la filayo in doorashada baarlamaanku ay ka dhacdo Somaliland 2020 waxaa muhiim ah in xorriyadda siyaasadda iyo xuquuqul insaanka la ixtiraamo.